بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي وسلطان عبد الله محمود معمولها معهد علوم الدراسات كسياسة من نمو Institute for Political Science and Knowledge. waxaan salaameynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. waxaan ku salaameynaa salaanta islaamka, salaanta ciisada iyo sharafta leh. salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. bacda salaam waxaan rabaa maanta inaan barnaamij yar oo aad u fiican aan uga warramo dhammaan bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. barnaamijkaas oo quseeya dhalinyarada iyo cid kasta oo danaynaysa qaabka ay wax u baran lahaayeen ama qaabka ay wax u akhrisan lahaayeen. سؤال بانكو ويدينيا waxa weeyaan daawado ma istiraada in badan wax ma ku fakada inaad wax akhriskaaga badiso ma ku fakada inaad buugaag badan akhri istiraado balse laakiin ma akhrin weydaa waxaan rabaa inaan maanta barnaamijka aan ka hadlo qaabka ugu wanaagsan oo qofku wax u akhrin karo iyo muhiimadda wax akhrisku leeyahay sida wada ogsoonahay akhriyaha maanta waa mustaqbalka iyo hogaamiyaha mustaqbalka wax akhrisku waa very talented wax akhrisku insaanka aqliyadiisa kor bay u qataa ilaahay subxaanahu wa tacaala marka uu soo dejinayay nabi calayhi salaatu wasalaam ku soo dejinayay qur-aanka nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam iqra suuratul iqra lagu soo dejinayay النبي عليه الصلاة والسلام ما أنا بقارئ النبي عليه الصلاة والسلام أورجع مركا وحقرس ودينتين الإسلام كا يسمعه إن النبي وحي كجوكتا ماشى وصل رئيسه وقفكو وحكو آخرينكم مهمة جارنا إلهي سبحانه وتعالى إيو وعوي دينتو ووالسي قفكو إنه وحخريو إنه more of a time وحخريو قرآن كوحوي إن بدن أطميدي وقرآن كأخريو waxa way diintiisa u barto waxyaalaha kale cilmiga aan u akhriyo waa wax aad iyo aad muhiim u ah maama ingiriisa waxa ahayd read the increases the level of personal understanding qofka uu wax akhriskiisu u bato waxa uu kor u qaadmaya ama waxa kor qaadmaya level of personalkiisa shakhsiyadiisa kor buu qaadmaya waayo qofkaas cilmi aqoon garasho intabu u ziyaadaysa kullama aw akhriso wa kullama aw faa'iido Angela Carter gabadhii qoraaga ahayd oo reer Belgium ahayd waxa ay tiri I find the more read the better of right mar walbo aan wax akhriyo waa mar walbo aan wax qoro hadase mar walbo aan wax akhriyo waa mar walbo aan wax akhriyo marka wax akhrisku waa hab dhaqanka ugu wanaagsan oo qofku waxa weeyaan u yeelan karo waxa uu kaga maarmayaa balwadii waxa uu kaga maarmayaa maqaaxi iskaga fariisigii waxa uu kaga maarmayaa fadhi ku dirikii waxa uu kaga maarmayaa waqtiga uu lumin jiray haddaad islaan waa dhaqan wanaagsan oo aan u baahannahay bulshadeena Soomaaliyeed inaynu isbarno dhaqan aad iyo aad u sarreeyo inaynu qur'aankeeni aynu akhrino oo waxa weeyaan 24 saac 4 saac 2 saac 1 saac nus saac ka mid aan quraanka ku akhrino oo aan quraanka badino aan cibaadada badino wax akhriska mid maadi iyo mid diini aanu siyaasano kor aan u qaadano oo wax aad iyo aad muhiim u ah marka sidee baad xirfadaada wax akhris kor ugu qaadi kartaa waxaan anu ku oran lahaa dhowr qodob baan ku soo jeedinayaa si aad ugu dhaqanto oo abligarayso si aad u noqoto wax akhrista dhaba ka guul gaara hadafkiisa waxa weeyaan mid fog iyo mid dhow sidoo kale wax akhrisku wuxuu ziyaadiyaa garashadaada wax akhrisku wuxuu ziyaadiyaa aqligaaga wax akhrisku wuxuu ziyaadiyaa cilmigaaga wax akhrisku wuxuu ziyaadiyaa hab nololeedkaaga hab dhaqankaaga cultural variation kaaga waxaasoo dhan kor buu u qaadaa sidoo kale wax akhrisku wuxuu kor u qaadaa hab dhaqankaaga hab maqaamkaaga sare kor buu u qaadaa wax akhrisku marka diinteena islaamka iyo nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxa uu nafaraya inaynu wax badan aynu akhrino inaynu siirada nabiga calayhi salaatu wasalaam aynu akhrino inaynu diinteeni aynu barano oo waajib ka ahayd inaynu maadii barano
aynu noqono qof aad iyo aad barta cilmiga mid naadi iyo mid diiniba. waxaan ku oran lahaa dhowrkan qodob baan kuu soo jeedinayaa si aad u noqoto wax akhriste ka guulgaaray hadafkiisa, hamigiisa, aqoontiisa, cilmigiisa, garashadiisa iyo dhammaan waxa uu hadafkiisa mustaqbalka u leeyahay. Number 1 waxa aad dejisataa istiraatiijiyad aad ku horumarinayso wax akhriskaaga, inaad jadwal qorato, inaad ku xisaabtanto waqtiyada qaybto, inaad wax akhriso, inaad jadwal aad leedahay oo aad more of a time aad wax badan ku akhrin karto, mid maadi, mid diini, qur'aankii, waxa weeye siirada nabiga, diinteeni, waxaas oo dhan aad ku akhrinayso waa wax very muhiim qofka u ah. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala maalinta yawm al-qiyaama waa laga xisaabinayaa waqtigaaga meesha aad ku bixisay. shabaab fi maafnaahu qofka dhalinyarinimadiisa meesha uu ku soo qaatay maalinta yawm al-qiyaama waa la isweydiinaya. marka inaad waqtigaaga ka faa'iidaysato oo meel munaasab ah oo maalinta yawm al-qiyaama laga xisaabinayo aad waqtigaaga ku bixiso weeye. diiradda saar waxyaalaha aad jeceshahay inaad akhriso ama buugaagta aad jeceshahay inaad akhriso, ma novelist ba, ma history ba, ma waxa weeyaan geography ba, ma waxa weeyaan social ba, ma waxa weeyaan business ba. buugaagta aad jeceshahay waa inaad diiradda saartaa, soo urursataa si adigoo jecel aad buugaagtaada u akhriso. wax akhrisku waa inuu kuu noqdaa furaha ugu horeeya oo noloshaada aad ku dabaqan karto. waa inuu kuu noqdaa wax akhris. waa inaad wixii aad garan weydo aadan ka tegin oo calaamaysato si aad bari ka maalin hadday kugu soo laabtaan aad meel u xalliso. waxaa dhici karta caqabado badan inay kaa qabtaan wax akhriskaaga. waxaa dhici karta buugaag badan inaad wax akhrin weyso ama ingiriiska kugu adkaado ama si kale ay kugu adkaato, waa macquul. laakiin ha ka niyad jabin, markasta isku day inaad wax akhristo. the more of reading the more of writing. mar walbo aad wax akhriso, mar walbo aad wax fahanto oo aad wax hesho oo aad wax akhriso oo aqoontaada iyo cilmigaaga iyo garashadaada ay kor u kacdo wey. marna never give up, marna ha isdhiibin, marna noloshaada ha ka quusan, marna wax akhriskaaga ha ka quusan. wixii aad buugaagtaada aad jeceshahay aad ka faa'iido meel dhigo, meel waa inaad dhigataa oo aad waxa way kaydsataa oo aad qalbiga iyo quluubta iyo maskaxda iyo caqliga aad ku haysaa oo aad dabaqdaa oo aad ku dhaqantaa oo ay ku yihiin wax aad mar walba ku hamiso, mar walba ku garayso waa inay kuu noqdaan. waxaan kaaga digayaa caadooyinkan xunxun marka aad wax akhrinayso. waxaa ka mid ah inaad isticmaasho aaladda socialka oo kale, Facebook iyo wixii la mid ah oo kale. marka aad wax akhrinayso waa inaad iska fogeysaa oo meel aad iska saartaa. sidoo kale waxyaalaha ku mashquulin kara waa inaad iyagana meel saartaa oo aad iska daysaa, sida buugaagta, waxyaalaha ku mashquulin kara waxyaalaha waxa ka mid ah ku mashquulin kara telefoonka. waxaas oo dhan waa inaad meel iska saartaa. waa inaad saacadaha aad ku kalsoonada naftaada wax akhris horumar leh ana ka gaadha. waxaad iska ilaalisaa asxaabtaada maalmaha waqtiga la qaadanayso iyo maalmaha wax akhrisanayso waa inay ku kala duwan yihiin. haddii aad sidaa samayso waxaa hubaal ah inaad noqonayso qof ka guulgaaray wax akhriskiisa, horumarkiisa, yoolkiisa. waxaad noqonaysaa qof ku kalsoon nafsadiisa, qof aan waxba loo yeerin karin, qof cilmi iyo aqoon u leh waxa uu akhrinayo, qof aan waxba loo yeerin karin, qof og taariikhda iyo historicalka iyo juqraafiga iyo meelaha ay wax marayaan qof og baa tahay. waayo qof wax badan akhriyay, wax badan fahamsan, wax badan ay u kala dhacsan yihiin baa tahay. marka intaasaan maanta kusoo koobayaa. maalin kastana sidaasaan jeclahay insha allah inaan waxyihii kooban idinla wadaago hadduu alla idin insha allah. inta aadan daawan ka hor waxaa hubaal ah si warbixino kale oo qurux badan oo dhanka waxa weeyaan waxbarashada, dhaqaalaha, waxa weeyaan horumarka aad igala socoto page-kayga iyo waxa weeye bartaan YouTube-ka ku leeyahay Midnimo Institute for Political Science and Knowledge. Assalamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh.